kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka Somali Cable TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta TV-ga ee Muqdisho. warka waxaa idin aqrin doonta anigoo Kiin Cumar Makarana. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah u qaybilsanaha qaramada midoobay u qaybilsan dhinaca bini'aadanimada ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. shirkadda barangaraafta diyaarad ee leedahay ayaa ku burburtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku laabtay magaalada Kismaayo kadib markii uu ka qayb galay caleema saarka madaxweynaha Galmudug. warbixin ka hadlaysa horumarka ganacsi ee ka jira gudaha magaalada Muqdisho ayaa warkeena ku daawan doontaan. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Sanaag ayaa xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda gobolka Sanaag iyo sidoo kale gudoomiyihii hore xilka looga qaaday. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warka ku daawan doontaan balse marka hore qadar xayeysiisa. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale Ramadaanul Kariim kusoo dhawaada warka Somali Cable TV oo faahfaahsan. diyaarad ay leedahay shirkadda Bangaraafka ayaa maanta ku burburtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdiraxiin Xuseen Ceelaabe. diyaaradan oo ka soo duushay garoonka Entebbe ee dalka Uganda oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. diyaaradan oo cagaha ay u bixi waayeen ayaa ugu dambeyn ku burburtay garoonka iyadoo ay badbaadeen shaqaalihii la socday waxaana hakad galay muddo 3 saacadood ah diyaaradihii ka soo degi jiray garoonka aadan cadde. maareeyaha saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay burburka diyaaradda oo ay lahayd dawladda Mareykanka waxaana diyaaradan ay u kireysneed shirkadda Bangaroof. waxaa jira arin shil maanta ka dhacday garoonka waxaa shilkaasi saameeyay diyuurad Mareykanka laga leeyahay oo wuxuuna dhacay abaarihii 12 subaxnimo oo 10 la diyuuraddu waxay ka timid Entebbe oo ah Uganda waxay u socotay Muqdisho. sababtay cilada sababtay shilka waxay ahayd taayaradii ay ku degan lahayd ayaa u bixi waayay 3 jeer ayay maartay si low bass oo hoose ay joog hoose ku martay dhabaha diyuuradda caga dhigtaan towerka controlada waxay u hubiyeen inaysan taayaradii u baxsanayn kadibna pilotkii go'aan ayuu gaaray inuu candhada ku dhufto dhabaha diyuuradda caga dhigtaan oo crash landing uu sameeyo. falillaahi alxamdu si nabadgelyo ayay ku dhacday. marka gaadiidka debdemiska arintan oo kale markay dhacdo waxaan diyaarinaa gaadiidka gurmadka degdega ah oo ah ambulance iyo booliiska iyo debdemiska oo ah qaybta ugu muhiimsan dhammaantood waxaan standby aan ka dhignay. diyuuradiina wax daba kama dhicin qiicuun baa maartay jiray. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in diyaaradaha maanta hakadka galay ay ilaa caawa ka soo degi karaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. maanta shil yar ayaa wuxuu ka dhacay garoonka aadan cadde International Airport ee Muqdisho. alxamdulillah wax dhib ah kama dhicin oo weyn. 4 qof saaraa diyaaradana waxba ma gaarin marka alxamdulillah taas baa ugu weyneed. sida la socotiin airportku waa aad buu mashquul u yahay. diyaarado badan ayaa ka soo dega maalintii markii wax yar uu xiraado dhibaato badan ayaa naga soo face gareeyay oo ku saabsan diyaaradaha jidka ku soo jiray. meelihii ugu dhawaa ee hadda lagu leexiyay hadda ka soo kacayaan hadda Ilaahay ka raali noqdo. sida Axmed uu u sheegay nasiib wanaag hadda diyaaraduhu habeenkii ay soo degi karaan marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa intii saacadood ee diyaaradaha hadda ay xiraayeen dib badan inuusan naga soo gaarin oo caawa ay soo degaan si berri operationska uu normal ugu. Cabdiraxiin Xuseen Ceelaabe, Somali Cable, magaalada Muqdisho. u qaabilsanaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa kulan kula qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. u qaabilsanaha ayaa markii kulankaasi uu soo gabagaboobay kadib shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho kana warbixiyay qodobadii ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. sida warkan uu inoogu diyaariyay wariyaheena Haashim Malaaq Maxamed. Erik Solheim oo ah u qaybsamaha qaramada midoobay dhinaca biyada iyo deegaanka iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Michael Keating oo shir jiraa'id ku wada qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen kulan ay wada yeesheen ayaga iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
Erik ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin bii'ada, tamarta iyo shidaalka Soomaaliya. Master Erik wuxuu soo hadal qaaday in kulan muhiim ay wada yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. kulanka ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ku tilmaamay kulan taariikhi ah isla markaana ay ka wada hadleen arrimo xasaasi oo muhiim ah in laga wada hadlo. ugu horeyntii wakiilka qaramada midoobay Mr. Michael Keating ayaa mikrofoonka ku soo dhaweeyay qaybsamaha qaramada midoobay. Welcome Erik Solheim, who is the Executive Director of UN Environment, which has its global headquarters in Nairobi. Mr. Solheim is an old friend of Somalia. He has been here many times before, and he's had a long and distinguished career in the international system, as well as a minister for his own government, Norway. He has had meetings today with the Prime Minister. So let me hand over to Erik Solheim. Erik Solheim ayaa ka hadlay kulankan ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Somalia is such a promising place with so many opportunities, and let's support the government to achieve this. Environment, of course, is a very central issue to any government, but I think it's particularly central to Somalia, because the drought which we have seen here over the last few months, of course, linked to climate change, which is an environment issue, but it's also linked to the destruction of forests and reduced poor water management and other environmental issues in Somalia itself. So assisting Somalia to get out of this will be very helpful for the economy and to benefit people of Somalia. One of the key priorities of the government, so strongly emphasized by the Prime Minister, is job creation. People simply need jobs. Lots of young people joining the labor market in Somalia every month, and all of them have the desire, I want to feed my family, I want a good life, I want to do something for society, but for all this I need a job. The fortunate thing is that providing for the environment and creating jobs come very well together, and one of the areas is in the area of energy and renewable energy. Prices on energy are horrendously high in Somalia at the moment. You pay a lot more for electricity here than most other places in the world, because it's generated in the old-fashioned polluting ways through generators, rather than in the modern and much cheaper way through solar and wind, etc. My good friend Mike will try to bring together, we would like to support that, the different players from the private sector and from government and from the donor community to see, can we really assist Somalia in changing into the renewable energies, which will provide for a huge amount of jobs, but also cause for economic prosperity and be good for the environment all at the same time. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku laabtay magaalada Kismaayo kadib markii uu ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Galmudug sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Saabir Cabdiqaadir Warsame Honasti oo Kismaayo ku sugan. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib caleemasaarkii madaxweynaha Galmudug ee maalinnimadii shalay ahayd uu kaga qayb galay magaalada Cadaado oo ah xarunta ku meel gaarka ee maamulka Galmudug. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii uu gagida diyaaradaha magaalada Kismaayo soo gaaray waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. salaan iyo soo dhaweyn kadib madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa howlka nasashada ee garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay waxaana uu ka warbixiyay safarkiisii uu maalinnimadii shalay ahayd ku aaday magaalada Cadaado ee xarunta maamul goboleedka Galmudug halkaas oo uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Xaaf
waxaana uu sheegay in ay ahayd caleemasaar si wanaagsan loo soo abaabulay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo hadal qaaday in madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Geelle Xaaf iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas kuwaas oo wada qaatay shir si gooni ay uga wada hadlayeen xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale nabadeynta dadka wada dego magaalada Gaalkacyo. qasadkaan u tagnay waxaa ka qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. ficlanna waxaan u muuqanaysa xafladdaasi inay mid muujinaysa unity soomaalinimo midnimo mid muujinaysa dareen iga muuqanaya dadka Soomaaliyeed iyo sida aad maanta moodayso wax badan inay dadku wado u wada qaadanayaan. xafladdaas shalay markay dhacday ka bacdi waxay noqotay xalay inaanu barinay guusha baryada aan barinayna waxay guulu sii ahayd Puntland iyo Galmudug oo daris ahaa arrinta Gaalkacyo iyo xogaa iska jirjireen xorgufo shacabka dhexdiisa inay fursad u heleen labadii madaxweyne iyo annagoo goobjoog ka ahayd in wada hadal dheer oo furan oo niyad wanaag leh oo ka fiican kuwii hore loo geli jiray meesha lagu galay. sababta keenaysana waxay ahayd imaatinka iyo wada joogga iyo meesha la isugu yimid bay-ada laftirkeeda wax badan bedelaysa. waxaan odhan karaa waxay ahayd wax natiijo degdega oo la taaban karo wax dhalinaya. waxyaalaha hadda ay qaateenna waxaa ka mid ah iyagoo bisha Ramadaan awgeed dad isku dhacyo iyadoo meel deegaanada qaarkood ay roobab ka da-een qaarna weli abaartii ku jiraan dadkana aad garanaysaan guuraagu daruurta inay raacaan inay baadida kale ceshan waayaan ninkii baadidii ay ka soo raacdo inaan soo raaci karin. laakiin labada madaxweyne Puntland iyo Galmudug aan isleeyahay waxay qaateen geesinimo. dowladda federaalkana waxaan u soo jeedinayaa baaq ah inay isha ku hayso xaaladaha deegaanada ka taagan oo dhaqaale iyo taageero siyaasadeed labadaba ay u geystaan. dowladduna ha ogaato reemudu haddaan lagu soo fakadaan dhibkooda uu badnaanayaa meeshooda ha lagu hayo. Saabir Cabdulqaadir Rursame Saabir Honesty Telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo. munaasabad lagu xusayo maalinta Africa Day ee ay soo qabanqaabisay safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Kuwait ayaa lagu qabtay dalkaasi sida uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi ee Kuwait nooga soo warama. danjirayaasha Afrika u fadhiya dalkani Kuwait oo ay safaaradda Soomaaliyeed ee wadankani Kuwait hormuudka ka tahay ayaa xaflad ballaaran oo lagu weyneynayo maalinta African Day ka dhigay Hotel Jazeera ee dalkani Kuwait. xafladaas oo ay ka soo qayb galeen madax sare ee ka socotay dalkani Kuwait oo ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadankani Kuwait, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankani Kuwait, danjirayaasha dalalka shisheeye u fadhiya wadankani Kuwait iyo dhammaan jaaliyadaha Afrika ee ku nool wadankani Kuwait. safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Kuwait ahna hormuudka safaaradaha Afrika ee fadhiya dalkani Kuwait ayaa waxaa khudbad dheer xaflad soo jeediyay isaga oo ku hadlaya magaca danjirayaasha Afrika. waxaana uu safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankani Kuwait danjire Cabdiqaadir Amiin Sheekh khudbadiisa uu ku soo qaatay horumarka dhan waliba leh ee ay gaadhay Afrika, isaga oo tusaale u soo qaatay doorka ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa amniga ee kaashanaya walaalahooda AMISOM ee Afrika. wuxuuna danjiraha ku daray khudbadiisa in Afrika ay tahay mustaqbalka adduunka, wuxuuna ku bogaadiyay dalalka Carabta gaar ahaan wadankani Kuwait in ay maalgashi ka sameeyaan wadamada Afrika. أصحاب السعادة الأخ محمد سليمان الشان مساعد وزير الخارجية وشؤون إفريقيا. وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نهنئ
المملكة المغربية الشقيقة بعقدتها الميمونة إلى قطبية الاتحاد الإفريقي بما لها من مكانة وإسهاماتها المثمرة على الصعيدين الإفريقي والعربي. أسمى تهانينا للمملكة المغربية الشقيقة متمنين لها كل التطور والانتهاء. وأخيرا وعلى رأسها معالي الشيخ صباح خالد المصطفى النائب الأول رئيس وزارة الخارجية، كما نشكر معالي السيد خالد سليمان الجارة نائب وزير الخارجية على حرصه الدائم لحضور حفلنا في كل سنة، وسعادة الصديق بارم الإمام مساعد وزير الخارجية، وسعادة الأخ محمد سليمان المشعل مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، وكل الذين شرفونا بالحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale waxaa halkaasi khudbad dheer ka jeediyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee wadankani Kuwait, wuxuuna sheegay in xiriir wanaagsan ee iskaashi dalkiisa iyo dalalka carabta guud ahaan gaar ahaan wadankani Kuwait ay la leeyihiin wadamo badan oo ka tirsan Afrika. ayaa waxa uu yiri sida السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحيات معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد محمد الصباح حفظه الله، وتمنياته لاحتفالكم اليوم بالتوفيق والنجاح. ومن منطلق حرص دولة الكويت على العلاقات العربية الأفريقية، فقد استضافت بلادي مؤتمر الخدمة العربية الأفريقية الثالث في نوفمبر عام 2013، وقامت بتسليم الرئاسة المشتركة إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال مؤتمر الأمة العربية الأفريقية الرابع والذي عقد في مدينة ملاقو في نوفمبر من عام 2000. kadib markii ay dhamaatay khudbadihii waxaa danjiraha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ay fureen bandhiga ay dalka Afrika ku soo bandhigeen dal walba hidaha iyo dhaqankiisa. Safaaradda Soomaaliya ee wadankani Kuwait iyo jaaliyadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa halkaasi ku soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, iyaga oo madaxdii ka socotay wadankani Kuwait iyo diblomaasiyiinta ay soo booqdeen bandhiga ay ku soo bandhigeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankani Kuwait hidaha iyo dhaqankooda. ma ahan markii ugu horeysay ee lagu maamuso maalinta African Day ee wadankani Kuwait. Cabdullaahi Macalin Nuur, Somali Cable TV, caasimada dalka Kuwait. horumarka ganacsi ee ka jira gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ganacsiga oo uu noqday sanadihii ugu dambeeyay mid la casiyay ayaa warbixin ka hadlaysa waxa inoo diyaarisay wariyaheena Ayaan Cusmaan. halkani waa mid ka mid ah goobaha sida weyn loo qorxiyay ee ka dhex binaysan magaalada Muqdisho. dhismo ahaan iyo waliba muuqaalada quruxda badan ee aad ku daawan doontaan in waxa ay qayb ka tahay dadaalo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaya dib u soo celinta bilicda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Muqdisho Mall waxa ka dhex binaysan dukaamo iyo waliba sidoo kale xawilaado si farshaxan loo qalabeeyay kuwaas oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxay sidoo kale xarumo shaqo u tahay boqolaal dhalinyaro Soomaaliya oo subax kasta u soo shaqo taga isla markaasina kula dukaama ganacsi. waxay TV-ga Somali Cable uga sheekeeyeen sababta ay ku doorbideen inay degaan Muqdisho Mall. magacaygu waa Zainab Maxamed Cabdulle. waxaan meeshan aan ka furnay Muqdisho Mall dukaankan oo ugu talagalnay in rag iyo dumarba aan ugu labisno maadaama bulshada inta badan ganacsi ay ku soo badanayaan si income-ka wadanka soo galay loo sii siyaadiyo oo bulshadina dhar qurux badan ay u helaan muuqaalkoodana u sii ifo. adiga gabadha ay qaatay xilli ma bilowday ganacsi? adiga muddo 5 sano waa ku dhex jiraa xilliga jaamacadda aan dhiganayo iskuulka ilaa hadda waan ku dhex jiraa. waxa iska caawiyaa maamadeeda maadaama aan hadda waxba shaqo gooni aan ahayn si ganacsigeedu u sii balaarto magac fiican u yeesho. magacaygu waa Cabdinaasir Qaasim Xuseen. awal horta waxaan leeyahay Ramadaan Kariim bulshada meel kasta ay joogto. mid labaad meeshan waxaan ku haynaa agabyadana u jeedaan sida toobkan oo kale iyo cabaayadaha shopping noocyadiisa kala duwan haday kareemi ahaa lahaayeen haday saliida ahaa lahaayeen saabuuno ay nooc wixii shopping yani ku aftirsado
iyo waxyaabahan yarooti oo yani gabdhaha u yaqaanaan make upka oo kale waxaan haynaa boorsooyin oo kale waxaan haynaa kabooyin ayo nooca oo dumar iyo ragba iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan oo u yaqaanaan bugta iyo faashionada haddii aalay farantiyaal katiinado bushleedyada gacmaha la gashto iyo waxyaabo kale aad u badan wallaahi adiga waxaan bilownay muddo 3 bilood yani meesha ay furan tahay bishana yani 3 soo xirmaysaa waxaan ku doorbiday maadaama ay tahay meel yani bil ahaan oo yani bulshada soo jiidanayso maadaama ay tahay meel aad u qurux badan yani ana yani ku qiyaasi karo inay tahay meelaha yani la jaanqaadka hadda xilligan la joogo oo yani lisdhihi karo mall yani biyo businessyadan qaar oo ku munaasib yihiin saas awgeed aan u doorbiday marka hore magacayga waa maxamed xuseen cumar businesska waa caro waxaan dhiibiyaa dharka ragga waxay ku taalaa muqdisho mall carada magaceedu waa bilaara maxaad ku doorbiday inaad muqdisho mall ganacsiga ka samayso waxaan ku doorbiday marka la aragnay meelaha qaar oo dadka carooyinka banaanka ku furaan waxaan aragnay muqdisho mall in laga dhigay suuq aad u weyn market weyn ah kadib waxaa aan qorsheysanay aan balaan garaysanay in caro aan ka furno sida waxaa meel aad amniyeed u fiican dadkeena aad u soo gali karaan oo meel aad munaasab ku tahay oo carooyinka laga furo wallaahi qof kasta markuu arko meeshaan markuu imaado wuxuu leeyahay maduwiyaan joognaa mise maxaa lahayay wadamo kale aan joognaa ma u maleeyaan marka in soo dhex galaan muqdisho mall markay soo dhex galaan ma u maleeyaan in maxaa lahay joogaan Soomaaliya inay joogaan ma u maleeyaan waxay u maleeyaan inay joogaan wadan aan wadankooda ahayn saytaana way nagu dhiirigeliyeen in daan shaqada culus ay haystaan ilaahay inay garab galo muqdisho mall waxa uu ka kooban yahay sida aad aragtaan 3 dabaq kaasoo quruxda iyo bilicda la jaan qaadaya dhismayaasha dunida casriga ah boqolaal kamida shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa daawasho ugu soo tagay iyagoo sidoo kale ka adeeganaya waxaanay soo jiidatay boqolaal kamida sidoo kale qurbo joogta dalka gudihiisa ku sugan waayaan ismaan Somali Cable magaalada Muqdisho ganacsade Maxamed Yuusuf Gurey ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 400 oo qoys oo ku nool gobolka Maroodi Jeex sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cilduruus Beershiya deeqdani raashinka ay isugu jirtay bur saliid bariis iyo timir oo ku deeqay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Gurey ayaa loo qaybiyay 400 oo qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Sabawanaag oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex oo muddooyinkan u dambeysay la daalaadhacaya abaaro baaxad leh oo saameyn ku keenay dad iyo dunyaba iyadoona xilligan ay bilatay bisha barakaysan ee Ramadaan halkaas oo ay ugu qaybiyeen xubno guddiya oo ka wakiila ganacsadaha أحمد عبد القادر أحمد حسن وكاميدا جددني وكيل ككاه الدغدني هل كان وجود قيبية تذكر ميجا يكون والدقمة السبوناج وحاو شرحي الدغدني عي عدة صوب حسي وحنو مهد علي وضياش الدجانك يعيدا كبليسكا وكعوية قيبين تراشين كني وحنو شوقنا قوبتي صدحات أما دقمتي صدحات أو السبوناج أو أنو كاني دغدي وكود دغي جناعسد محمد يوسف علي قري iyadoo aanu ugu talagalnay 400 oo qoys ilaah mahadi si fiican bay u dhacday waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa odayada iyo booliska Sabawanaag oo si aad noola shaqeeyay waxaan halkan uga ducaynaynaa maxamed Yuusuf Cali Gurey in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadkiisa uu u saaro waxaanu insha Allah rajaynaynaa inaan goobaha kale la gaarsiino deeqda ka guddi ahaan aan wakiil uga nahay Maxamed Yuusuf Cali Gurey aad baa u mahadsantihiin barakallahu fiikum xubno kamid ah 400 ee qoys ee loo qaybiyay deeqdani raashinka ee uu ku deeqay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Gurey oo halkaas iyaguna ka hadlaya waxay u mahad celiyeen deeqdaasi uu ku soo deeqay ganacsaduhu iyo guddida ka wakiilka ee soo gaarsiisay iyaguna Xuseen deeqdaasi ay ka gudoomeen si fiican loogu qaybiyay ilaahay baa mahadle maanta waa maalin Ramadaan ay 3 ama 4 alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan u mahadnaqnaa ilaaha abaartii naga jabiyay nimcada la siiyay ayaa mahadaale
alxamdulilah ilaahay waa u mahadnaqannaa waxaa kaloo aannu saaka halkan ku qaadannay deeq uu keenay ninka la yidhaahdo maxamed yuusuf cali guray isagana waxaannu uga mahad celinaynaa deeqdaa uu keenay waxaanu leenahay jisaakuma laa jisaa baaraka allaahu laka alxamdulilah ilaahay kaa jaasiyo waannu ka guddoominay wadaadadii wadda iyo waftigii wadda culimmadii waddana waannu si fiican baannu isu garab taagnay haddii aannu nahay yacnihii ma garanaysaa odayaasha deegaanka anigoo ku hadlaya afkii deegaanka maxamuud axmed cigaal guddoomiyaha deegaanka degmada sabawanaag anigoo ah deeqda maxamed yuusuf cali guray ka timi haddaannu nahay deegaanka sabawanaag si fiicanna waannu u qaadannay ilaahay dembi dhaaf iyo makfuurana ha ka siiyo annagana cunto fiican oo xalaala ilaahay ha nooga dhigo mahadnaqaynaa maxamed yuusuf cali guray oo ah ninka ilaahay deeqdan ugu soo dhiibay dadka ee isaguna ugu soo tabarrucay ee gartay inuu dadkiisa baahan iyo walaalihiisa dhibaataysanoo wax siiyo halkan waxaannu wax ugu qaybinnay 200 oo qoys 400 oo qoys baan halkan raashin ugu qaybinnay oo isugu jira dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii deegaanka ahaa labaduba iyagoo ah dad dhibaataysan oo dadkii xooluhu ay ka baxeen ee abaaruhu ay soo naafeeyeen si wanaagsan oo sharaf leh ayaan ugu qaybinnay si wanaagsan bay u qaateen alxamdulilaahi rabbil caalamiin si wanaagsan bay u gaadhay waa u mahadnaqaynaa ciddii soo saartay ee u keentay oo ah maxamed cali guray ilaahay dembigiisa ha dhaaf halku ka soo saarayna wax khayr leh ugu bedelo maxamed yuusuf cali guray nimcadan uu na siiyey ayaan ugu mahadnaqaynaa asagana ajarka ilaahay ha ka sawaabiyo annagana ilaahay ha noo calfo si wanaagsanna waannu u qaadannay wanagaasoo waannu ka dheregnay ilaahay baannu ugu mahadnaqaynaa marka hore marka labaadna waa asaga ruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable degmada Sabawanaag waxaa burbur xooga soo gaaray jidka u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa Gibiley iyo sidoo kale Wajaale sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Sakariya Nuux Ibrahim iyadoo uu guud ahaanba burbur xooggan soo gaadhay jidka halbowlaha ah ee isku xidha gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalooyinka Hargeysa Gibiley iyo Wajaale kaasi oo qarka u saaran inuu gabi ahaanba baaba'o isla markaasina uu gaadiidka ku hayo dhibaatooyin sababa shilal galaafta naf iyo maalba jidkani ka muuqda dayaca iyo burburka oo sidoo kale halbowlo u ah ganacsiga dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaasina ay maraan baabuurta sida iskaga kala goosha dekada berbera ilaa dalka Itoobiya ayaa waxa maanta telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV uu ku urkalay xaaladda dhabta ah ee jidkaasi waxaan wax ka weydiiyay wadayaasha gaadiidka dhibaatooyinka uu ku hayo jidkaasi waxa gudaha wadiga arkay maalin walba jiidayaasheeda iyo ganacsiga khayradeedu waana ku qarxan waana ku fiiday shaqalada naga qaba isbrinada naga jaba cashuurna maalin walba naga qaada dawladdu haday wax ka qaban weydana dadka cashuurta qasab kaga qaadi maysee waan la noqon anaguna waxa yar baaba iyo burburka ku yimid jidkani halbowlaha ah ee dhibaatada ku haya gaadiidka iyo dadka ayaa waxa xusid mudan inay ka damqadaan caruurta xoolaha ku jira agagaarka jidkaasi oo gacmahooga ku buuxiya si iskaa wax u qabsaa si ay ugu sahlaan baabuurta maraya jidkaasi magaca عاوز سمعنا صوتهم gaariyaasha ka soo gawaarida ku rogmanayso samaynayso adigu ma markaa isxil qaabay dawladda ku dirtay mise adigu ma dirtay anigu bas ku diray dawladda xafadiina waa ka taala hay xoolahana adeegisi sidoo kale waxa Somali Cable TV la hadlay dadweynaha reer Gibiley ee maraya jidkaasi ismaal cabdi badaw aqoonyahanka reer Gibiley waxaan halka saaka joognaa deegaanka la ilaaliyo sabirre oo u dhaxeeya kala beer iyo Gibiley oo ah meesha ugu burburka badan xagga wadadan aamayda ee uu cidka ku sameeyay halkan saaka waxaan ugu nimidnay wiil yar oo iskiis ku xilqaamay oo wadada buuxinaya meelaha gooqay
horta wax lagu farxo khayr waa dhiiri gelin oo daamaba 12 kamaayar ee gablay 12 xildhibaan ee gablay yaha wadayga iyo sharaabka isla dhaca saacadana hurdo khayr baa dhaawaa leeyahay aniga eegay ka geelaha loo dilaan leeyahay kuwaasi waxay daayaceen anigii loo diray kana ku dhaawaba leeyahay loo diray geela oo gablay ku qaban karay midda kale waxa tusaale soo qaadanaya golaha deegaanka boora waxay dhagax dhigeen marka la isku tashaday aqliga iyo cilmiga iyo cududda iyo daacadnimo la isku geeyo wada isku xidha boorama iyo lawyaco meesha wada la gaaro rag baa himsay waxa leeyahay maamulka gabilay war waxa daayacdan anigii laydin si kastaba ahaatee jidkani dhibaatada ku haya dadka iyo gaadiidka ayaa waxa mar kasta mara madaxda ugu sarreysa xukuumadda Somaliland ilaa welina lama hayo wax qorshe oo cad oo ay ka soo saaraan Zakariya Nuux Ibrahim Somali Cable TV gobolka Gabley gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Sanaag ayaa xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag iyo sidoo kale gudoomiyihii hore xilka looga qaaday sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Darwiish oo ku sugan gobolka Sanaag gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle ayaa wuxuu maanta xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhooleyare iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay Cali Sidiiq Xaaji Faarax waxaana munaasabadii xil wareejintan oo ka qabsoontay xarunta maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen garsoorayaasha maxkamadaha Ceerigaabo ku-xigeenka xiriirliyaha guud ee gobolka Sanaag qareeno saraakiil booliiska iyo xubno kaleba ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle munaasabadan xilka kala wareegayaan gudoomiyihii hore gobolka Muuse Maxamuud iyo gudoomiyaha cusub Cali Sidiiq Xaaji Faarax oo dhawaan guddiga cadaaladdu ay u soo magacaabeen mid kasta xilka iminka loo wareejinayo rumaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyaha cusub ee loo soo bedelay gobolka Sanaag maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq oo anagu aan si fiican isu naqaano yahay waxaan ka rajaynaynaa inuu la yimaado shaqo wanaagsan hufan mas'uuliyad dardar oo shaqada gelin doona insha Allah isagoo loo soo dalacsiiyay maxkamadda gobolka Sanaag aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa insha Allah anigoo ku hadlaya soorka gobolka Sanaag afkooda gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhooleyare ee xilkan wareejinayay iyo gudoomiyaha cusub ee xilkan maxkamadda gobolka Sanaag la wareegayay Cali Sidiiq Xaaji Faarax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlayay waxa hadalooda ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee cusubna waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii Sanaag wax laga yaabaa in wax lagu sheego lagu yiri waa sidan iyo waa sidan iyo waa sidan waad nasiib badan tahay gobolka Sanaag oo gobol aad u wanaagsan dad wanaagsan baa ku nool bayar yar iyo beela yar yar oo afarta beelood ku aftirsan oo fara badan baa ku nool dhammaantood cadaalad bay ka sugayaan insha Allah waanan ku rajo weynahay inaad dhammaantood si siman kiilooga iyo waqiyada ay maanta maxay haytay soo dhaweyntan wanaagsan ee maxay haytay garsoorka gobolka Sanaag maxay haytay ay sameeyeen xil wareejinta aniga iyo gudoomiyihii hore Muuse Dhooleyare waa mid maxay haytay muhiibadeeda yeelan doonta hadii la hay ka dhigo 36 sanadood ayaan ka soo shaqeynayay wasaaradda cadaaladda garsoorka meelaanu maxay haytay gobolka Sanaag inaanu ku kulmi doono iyo maxay waxa iyaguna kelmado kooban munaasabadan xil wareejinta ka yiri ku-xigeenka xiriirliyaha guud ee gobolka Sanaag Yaasiin Maxamuud Jaamac iyo waliba xubnaha dhinaca qareennada iyo taliyaha baarista dambiyada ee booliiska xilka la kala wareegayo labaduba waa laba nin oo aanu aad iyo aad saaxiib u nahay labadaba maxkamadda gobolka cusub Cali Sidiiq aad baan u soo dhaweynaya gudoomiye wax kale ku soo dhawow gobolka Sanaag waa soo dhaweynaa waan kula shaqeynaa si wanaagsan waan kula shaqeynaa maxkamadda gobolka saaxiibkay Muuse walaalkay aad iyo aad baan u sagooteynaa waxaan Ilaahay uga baryayaa seer kale is dhamaystirayo cadaaladiya soo dhawow baan leenahay gudoomiyaha cusub mar la kan u dhashay oo firfircoon oo shaqadiisa ka cadan cadaaliya
dawladdu miyaa naga kaxayraysa oo hadda labada kale ma gobol kale naga geeyay gudoomiyii hore ma inoo noqon doona taana cali sidiiq dadku way sii hadal hayaan waa ku sii boorinayaa waxa la leeyahay cadaaladii iyo wanaag ku sii sagootiyay salaanta islaamka waxa la leeyahay lagu doortay annagu waxa leeyahay barasho wanaagsan adiga ugu dambeyntiina waxa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle halkaasi xilalkii ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Muuse Dhooleyare iyo gudoomiyahan cusub ee dhawaan xilka maxkamadda gobolka Sanaag loo soo magacaabay Cali Sidiiq Xaaji Faarax wa Cabdullaahi Xuseen Darwish Somali Cable TV Ceerigaabo dadka abaarta ay saameysay ee ku dhaqan duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay dalbadeen in gargaar bini'aadanimo la soo gaarsiiyo sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Nuur Taatiko oo Gaalkacyo ku sugan barakacayaasha ku dhaqan duleedka degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen xaalad adag oo soo wajahday noloshooda iyadoona haatan lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan waxa ay sheegeen inay soo wajahday biyo la'aan cunno yari iyo hoy la'aan ayna mararka qaar ku adkaato sidii ay ku heli lahaayeen afurka iyo saxuurta maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayay ka codsadeen in ay u fidiyaan gurmad bini'aadanimo 6 bilood baan joogaa 6 bilood noloshan hadda ku noolnahay nolol daciif weeye nafta un baan ugu jirtaa 6 biloodna waa soo joognay markaan ka ahaatan ka liidanana ma jirto ilaahay baa shaydaan baa liitay dhibaatooyinka haatan haysta waxaa ka mid ah baahi iyo biyo la'aan iyo hoy la'aan iyo caafimaad la'aan hoyga aan ku noolahay bacaha hoostoodan ku noolahay bacana ma haysan oo waxaas geeda saafooda la isugu geliyo hoostooda xirid iyo rafaad iyo waxaa nugu dilay dabayl haddii roobkii uusan nugu diin hadduuba nugu di'i lahay roob badan nu heli lahaa waxba nagama hareen oo biyaha nala tegi lahaa ilaahayba wuxuu noogu naruureeyay macnaha xoogaaga maaragtay gebadkaaha nugu da'ay waxaa ku nool 625 qoys dadkaas waxaa haya intii qof xumaysa bilow aadniya baa haya gaajada ugu badan oo dama shidaan nawaale waxaa ku xigta hoy la'aan waxaa ku xigta caafimaad la'aan waxaa ku xigta suuli la'aan waxaa ku xigta intii qof xumaysa islaama dadkaas waa soo barakacay wax riseef feeriya ka yimid iyo wax ka yimid mudug hoose intuba waa leeyihiin dadkaas waxaan codsanaynaa hay-adaha sharafta leh iyo xukuumadda Puntland iyo wixii islaama mushtarka culimadiinka waxgaradka waxaan rabnaa si degdeg dadka in loogu gurmado walaalahooda waa baqtiyaan 10 qof baa dhimatay 2 dumar ah iyo 8 caruur waxay u dhinteen shadeeco bay sababsadeen gaajan waa ugu darmatay oo hunkurigii baa jabay waxaan leenahay dadka ha loo gurmado wixii islaama waa sooma yihiin waa walaalo liita noloshayadu waa nolol ilaahay og yahay nolol hoosaysan ku nool ilaahay naga furan karo laakiin hadda annaku nolol wanaagsan kuma nooli abinahaanta kuma nooli baahidana haysa waa mid oon iyo mid gaajo iyo mid qarqariyo ruux binow aadniya intii xumaysa yaan haysa oo baahiyeed Allah hadduu naga soo furto uu naga furan karo Soomaalida iyo muslimiinta iyo islaamiintu hadday naga soo furtaan naga soo furan karo laakiin annaku nolol daciifa oo ilaahay naga furan karo islaamkuna naga furan karo yaan ku noolahay waxaanu ka codsanaynaa oo in kaga baahannahay ilaahay hadduu yiraahdo wixii aan cuni lahayn soonka aan soo nabiyaan ku soonnaa waa ku afurnaa wixii kale oo daciif ah oo kale ilaahay na siiyay oo kale waa quudanaa laakiin wax gacanta noogu jira ma jiraan wax meel noogu qorshaysan ma jiraan waxaanu ku noolahay nolol ilaahay baanu ku noolahay laakiin meeshaan aanu nimid si aanu u nimid markii hore waa ku noolaano xoogaa nacfiga bini'aadmiga islaamku waana siiyeen laakiin 2 bilood oo kaamila waxaanu ku noolahay nololaan ruux bashari oo islaamku ku noolay oo daciifka 100% biyuhu noogu daran dad baa naga ganacsada biyaha aan joogno naga ganacsada annakoo hayna shilinkii hayno naftiga hayna nagu ganacsada oo aan ku baaba biyihii hore ma ahayn hay'adaha bixin jiro dawlad baa bixin jiro waa ku noolay laakiin haamaha meesha yaala faaruq way dad baa biyaha ku shubta mar iyaga asxaab baan ugu qabanay waa baqti lahayn ma waxaan ka soo keeni karnaa buurahaas aan biyo ka keeni karnaa waa iibsadeen hadda iibsadeen annakayba dan noo taybsaa waa baqti lahayn anna waxaan ahay Muuse Cabdi Xalne gudoomiye ku-xigeenka Tallaad meeshan dad badan oo 639 qoys yaa meeshan ilaahay soo keenay
baahi qof binaadan hay qabsata intii oo dhan waa haysataa waxa u badan caafimaad ku aad ugu liita oo dadku wada xanuunsan yahay gaajo hoy uusan haysan waad arkaysaa hadda adinku waa dhex taagantihiin dee haddii xoogaa ku sii socon lahaa dad badan bu maanta roobku qacaajin lahaa oo la tegi lahaa dadka ilaahay subxaana qaadir ah wax sii markay dadka wax u qabtaan ma rabnaa hadduu gobol yahay hadduu degmo yahay hadduu dawladda federaalka yahay waa dadkay u dhaarteen kulligoodana kitaabka beenta u mareen dheh waxa aan u qabanaynaa laakiin kama hayno waxay dhaheen dawladda waa u sheegnay degmada waa u sheegnay gobolka waa u sheegnay guddida abaaraha waa u sheegnay suuqay jaaqay bay dhegtay ka ruuxeen dadka xoolahoodiina ayaga hayo loo soo dhibay wax ay u qabteen ma jirto biyaha taniga 3 kun oo shilin baa laga siinaya oo wayirka ma fahanti waa tii hesha 3 kun ama tugsi ku soo hesha gaalkacda loo tugsi taga 3 kun tii la soo hesha la timaada ayadoo manfaacada ka walma biyaha ka walwalisa adduunka dee dhibaatadaas haysta sida cali aan nuur cabdi sida cali taatiko Somali Cable TV gaalkacyo qoysas Soomaaliyeed oo ku dhaqan xiriyaha Dadaab ayaa waxay dalbadeen in gargaar caafimaad la soo gaaro sida wariyahina Maxamuud Awees uu ku soo waramayo xeryaha qaxootiyada Dadaab ee dalkani Kenya ayaa waxa ku nool kumanaan qaxooti Soomaali ah kuwooda inta badan ay caruurtooda ay la daaladhacayaan kaalin caafimaad daro Salim Xuseen oo ah wiil Soomaaliyeed kuna xanuunsanayo gudaha xeryaha Dadaab kaasoo inta badan ay xubnihiisa jirkiisa ay naafaka yihiin kaasoo inta badan uu la daaladhacayo kaalin caafimaad daro hooyo Daahiro Nuno oo ah hooyadii dhashay Salim Xuseen oo ah wiilkani Soomaaliyeed kuna xanuunsanayo xerada qaxootiga Xagardheera ayaa waxay faahfaahin ka bixisay qaabku uu xanuunsanayo rahiim Daahir Nuno waxa magacayga Daahir Nuno Xasan Allah hariya Dadaab aan ku dhibaataysanahay maxaan ku dhahay cunuga Salim Xuseen Abdi hooyadiisanahay waxaas keer ka qaadano wax kale unaga awoodnana male hay'adda samafalka waxaan ka codsanayaa goobo caafimaad waan geeyay hadda ka hor waxa la ii qabtay mala inaa ilaa dadweynaha muslimiinta Ramadaan Kariimka intii muslim oo dad baawin karto intii hay'adda iyo intii maxaan ku dhahay dawladda waxaan ka codsanahay inay caawiyaan meel degdeg caafimaad leh goobo caafimaad leh oo hunguur leh nolosha inta dhan waa inaad degdeg igu gooyaan oo maxaan ku dhahay igu soo caawiyaan ama jecelahay cunugan ku soo saaciday waa xanuun hadi muddo 8 sano hadda 7 sano la qaadanay daawo la qaadanay goobaha caafimaadka uu yaalay wax ahad loo qabtay mala ilaa briftri ilaa daawada wax walba oo qaatay wax hadda maanta loo qabtayna mala cunugan galash uma awoodo hunguriga uma awoodo reerkan reer weyn waa Allah fiyo weed ilma jooga hooyo abana maadaama asaastaan waxaan rabaa inaan hay'ad samafalka iyo dawladda iyo dadweynaha iyo dadka Ramadaan Kariimka ina dadka Soomaalida ummadana Muhammadan inaad caawiyaan rabe gaal in muslim meesha joogo hay'adaha gargaarka waxa ugu baaqa cunugan wax waa u qaban waayeen laakiin waxaan rabaa inaan degdeg wax ugu qabtaan oo maxaan ku dhahay goobo caafimaad meel alla meeshii caafimaad yaa Ilaahay ba caafimaad ay iga qursiyaan oo maxaan ku dhahay ila soo gaaraan ma shaqeynayna mala aaba iyo hooyo ma qabno dad iska sabool meesha iska fadhiyo guri haysan oo hooyin haysan oo guri haysan waxba haysan aan ahay cunugaas rafaadsan waan kor jiifaa aan kor jooga 24 sano lama kici kara dhaqo ma aad kara gabar xanuunsan oo ii joogta aydan saas kadalika waxaan ugu baaqaa hay'adda samafalka inaan dhaqaaq ay sameeyso oo cunugaas waayahay bal hooyo Daahir waxaad nooga warbixisaa qoyskiina waa qoys markaasna aad u tiro badan oo aan markaasna dabcan saad sheegtay ama sayndheeygu ay qabanayaan qoyskani aabahooda ilaa muddo into ayaa kalmaqantihiino oo ilmaha caruurtooda saad sheegtay aabahooda iyadoo yar yar ay ugu war dambeysay bal nooga warbixi muddo hadda 5 sano 6 sano ma sanadkii lixaad ku dhow ninka lama hayo war nolol igeer lama hayo iska dhaqaaqay inuu waasho meel ku dhintay inuu nool yahay ma sheegi karo hadda kaarka taa ka go'ay ani ilmahaygan ku noolnahay meesha wax ehl iyo aqrabi ashiira annaga haystana ma awoodi karna ayad samafalka waxaan ka codsanaynaa iyo muslimiinta Ramadaan Kariimka waxaan ka codsanaynaa inuu na caawiyaan degdeg nagu soo caawiyaan ka codsanaynaa rabbil caalamiin ilaahi ayaan ku mahadinaynaa oo na soo waafajiyay bisha Ramadaan oo bishii barakeysaneed oo ilaahi uu yiri subhanahu wa ta'ala shahru Ramadaan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
bisha barakaysan ilaahayna soo waafajiyey annagoo caafimaad qabna ayaan ilaahay ayaan ku mahadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan wuxuu ku tilmaamay bil barakaysan inay tahay bilaha barakaysan ayay ka mid tahay waa bishii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka munasalka ilaahay uu ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala 17keeda bishaan alxamdulilah waxaan ka warqabnaa caalamka dadka islaamka in aad iyo aad ay u dadaalaan bishaan dadka muslimiinta ah dadaalka ay dadaalayaan ilaahay ayaana amri subxaanahu wa tacaala bishaan inaan ka faa'iidaysano si kastaba ha ahaatee qoyskani Soomaaliyeed ayaa waxay dhammaan muxsiniinta ugu baaqeen iyo weliba hay'adaha samafalka in la soo caawiyo sifa dalka dibadiisa kaalin caafimaad loogu qaado maxamuud awas daacad wararka TV-ga caalamiga Somali Cable xiriyaha qaxootiyada Dadaab Kenya gobolka Waqooyi Bari xisbiga ucid ayaa qalab isboortis gaarsiiyay kooxaha heerka labaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa sida warkan uu ku faahfaahinayo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA qayba kamida mas'uuliyiinta sidoo kale saraakiisha ugu sareeya xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid oo si amba qaaday barnaamijyada kala duwan ay ugu talagaleen inay ku badhitaan daayirta reer Somaliland isla markaana ku kobciyaan maankooda ay waxay abbaara 4 galabnimo ee saacada geeska Afrika magaalada Hargeysa si rasmi ah mid kamida garoomada Hargeysa ugu waaweyn ka daafureen tartan kubadda cagta ugu talagaleen tiimamka kala duwan ee heerka labaad ee kubadda cagta ee ka jira degmooyinka Hargeysa waxna halka hadalka kala duwan isaga daba maray xubno kamida waxna halka hadalka isaga daba maray xogayaha warfaafinta xisbiga ucid Yuusuf Kaysa Cabdilaahi xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga ucid Cabdiqani Salaf Kabtanka gudoomiyaha degmada Axmed Dagax u qaabilsan xisbiga ucid iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee isla xisbigaasi oo weliyaan saraakiil kale oo isla xisbigan ka tirsan waxaana kamid ah weedhahoodii sida ka bilowno degmada Axmed Dagax oo ah runtii degmo ku caan ah kubadda cagta hadday noqoto degmada Axmed Dagax iyo hadday noqoto gobolka Hawdba waa meelaha loo doo fadhiisto kubadda cagta dhalinyarada ugu xariifsanaa ay joogaan run ahaantii waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta dhalinyaradan la sheer garayno tartan cusub oo halkan ka bilaabmay masallaha oo aanu doonayno inaan ku dhiirigelino dhalinyarada noqon mayso markii ugu horeysay markii ugu dambeysay ee waxay noqon doontaa markii ugu horeysay dhalinyarada wax badan baan sheer garayn doonaa maanta waxa nasiib daraa jamhuuriyadda Soomaaliland oo jirtay 25 sano in xaggii sportskii ay kaga fiicnaato Soomaaliya dawladda Soomaaliya hodheelada ku jirta oo sideen wada ogsoonahay sportskeedu meel fiican uu maraayo innaga maanta sportskeeni hoos buu dhacay taana eedeeda waxa iskala xukuumadda iyo wasaaradda ciyaaraha waxay hayn tartan fara badan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta tartan ciyaareed degmada Axmed Dagax ciyaaryahannadoodii eedii iyo biidiiba aan uga furayna halkan tartan ciyaareed bisha barakaysan ee Ramadaan taasoo xisbiga ucid caado u ah oo aanay ahayn ma garanaysaa sida xisbiyada kale waxay maanta ama ku dayasho ay tahay wixii ugu horeeyay xisbiga ucid bilaabo isdhexgalka dhalinyarada xisbiga ucid wuxuu agsoon yahay mar walba uu xasuusan yahay in sportigu yahay waxa kaliya dhalinyaradu isdhexgelin kara waxaan aad iyo aad uga xumahay Axmed Maxamuud Siyaani madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cidda uu cugtay wasaaradda ciyaaruhu inaanay ahayn ma garanaysaa ciddii ku habboonayd magacaygu waa Maxamuud Xasan Jaamac waxaan ahay gudoomiyaha degmada Axmed Dagax ee xisbiga mucaaridka ucid koobkan qabaqaabadiisa ninkii soo dhigay baan ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin xisbigu noo fuliyay dhalinyartii aad buu ugu wada faraxsantay way soo dhaweynaysaa dhammaan xubnaha xisbiga oo dhan mas'uuliyiinta xisbigu way noo fureen dhankooda waxaa erey kooban ku cabiray tartankan qaybo kamid ah ciyaartooyadii tartankan ka qayb galayay waxaanay si weyn ugu mahad celiyeen injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga ucid xilligan ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiisha xisbigaasi way tilmaameen in si mugiyay miisaan leh isku xilqaameen in dhalinyarahan ay taageeraan isla markaana tartankan u qabtaan Ramadaan ay tahay maadaama ka weynida wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koobda ay dadku ku sugaan Afrika anaguna xaqiiqatan aynu ku tustada maadaama ay tahay xukuumadii danoo haysay maamulka aan ka weyna koob noo qabta xisbiga ucid xaqiiqatan waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga ucid xoghayaha guud ee heer qaran sportska xisbiga ucid haddaba ujeedada tartankan iyo kubadda cagta ee aimka loo qabtay waxay tahay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo
ma aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wixii tartan noocan oo kale ugu qabtaan gudaha dalka kaasi oo ay ku dhiirigelinayaan da'yarta waxaana intaa dheeray qaybinta darays ay dhallinyaradu ku ciyaari doonaan inta tartanku soconayo iyadoo si rasmiya labadii kooxood ee ugu horreeyay isla galataba ay bilaabeen ciyaarta tartankan kubadda cagta oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa guud ahaan warkii Somali Cable TV daawadayaal waa naga intaan warka xiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo